الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وحو إن ليهي الله وحو إذن سودتشي أو كتابك كسودتشي haddii aad maqashaan dad ku jeesjeesaya ilaahay aayaadkiisa ama ku kufrinaya ku ciyaaraya, haddii aad maqashaan hala fadhiisanina, hala joogina, ha ka mid noqonina, isaga taga. haddaad yeeli weydaan oo dadka ilaahay kitaabkiisa iyo diinta ku jeesjeesaya aad la fadhidaan, alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala markaa iyagoo kala tihiin, innakum idan mithluhum, ayagoo kala tihiin. allana tabaaraka wa tacaala munaafiqiinta iyo gaalada naarta jahannamuu ku kulmin doonaa, isugu geyn doonaa. ayaddu waxay tilmaamaysaa mabda' muhim ah oo loo baahan yahay inaynu ku baraarugsanaano mar walba, oo ah dembiga ha samaynin, ka samaynayana ha la joogin. midka dembiga ku jira xafladaha, munaasabadaha, kulamada xumaanta lagu samaynayo ee ilaahay lagu caasinayo ee dembiyada lagu galayo ha ka qaybgelin, ha la fadhiisanin, ha la joogin. maxaa yeele waajibkaagu waxa weeye haddaad mu'min tahay, meeshii xumaan iyo dembi ka jiro in aad inkirto oo aad diiddo oo aad reebto baa waajib kaa saaran yahay. waana mas-uuliyad mu'miniintao dhan laga rabo waayo, lianna iimaanka qalbiga ku jiraay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo aakhare uu ruuxu rumaysan yahay wuxuu ka xajiimoonayaa dembiyada xumaanta dhacaysa. midda isagu uu ruuxu samaynayana waa ka xumaanaya, waa gubaya. dadka kale waxay samaynayaan iyo markay rabbigii caasinahayaanna qalbigiisu iyo iimaanka ku jiraay waa diidaya, waa ka xajiimoonaya. waa inuu marka inkirtaa laga rabaa. waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaa'u bacdin ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar. wanaagay faraan, xumaantana waa reebaan. man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi, gacanta wax kaga qabo. haddaada keri karin carabka wax kaga qabo. haddaada keri karaynin qalbiga ka kaho. inaad marka iska dhex fadhido, bal inaad marxabayso, inaad u camirto dadkii xumaanta samaynaya majaalistooda. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay innakum idan mithluhum, ayagoo kala tihiin. kolba dembiga meesha ka dhacayay ku xidhan tahay. nooca uu yahay mushaarik baad tahay, qayb baad ka tahay. saas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacaala markuu sifaynayay cibaaduraxmaan, addoommadiisa qiimaha badan, sifaadkooda markuu sheegayay tilmaamaha lagu yaqaano, alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala waaladiina laa yashhaduuna azuur, xumaantiiyo baatilka ma xaadiraan, dembiyada kama qayb galaan, goobahooda ma tagaan, munaasabadahooda kama qayb galaan. laa yashhaduuna azuur waa baatilka, waa beenta, waa kufriga, waa macaasida, waa dunuubta, ma xaadiraan buu alla leeyahay tabaaraka wa tacaala. waidaa maruu billagwi maruu kiraama. wax xun oo saaqidahon qiimo lahayn markay soo maraanna, oo iyagoon ku talagelinba ay cagtu la soo marto, way maraan ayagoon ku wasakhoobin, iyaga oo way dhaafaan, ayagoon dhib ka soo gaadhin, ayagoon diintoodii dhaawaca gaadhin, ayagoon macsiyo iyo dembi gelin bay maraan oo dhaafaan. sidaasuu rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala. sidaas daraaddeed baa loo baahan yahay in aynu aad iyo aad isaga ilaalino. waayahan dambe kulamada la isugu imaanaya, aroosyada ha noqoto, munaasabadaha la dhiganayo, in badan oo ka mida munkaraad kama marhna, munkaraad shareecada khilaafsan kama marhna. haddaadan waxba ka qaban karaynin ugu yaraan ha tegin oo ha ka qaybgelin.
haddaad tagaysana meeshaad tagaysa ha noqoto eed muxuu ahay aad ka qayb galayso meel aan diintaada iyo aakhiradaada wax ka soo gaadhayn. ilaahayna ka baq tabaaraka wa tacaala, diintaada iyo aakhiradaada ilaasho. haddaad wax ka qaban karto ood wuxuun ka khafiifin karto ood reebi kartana ahlan wa sahlan. haddii aadan reebi karaynin lafahaaga la badbaad oo diintaada badbaadso. sallu wa sallimu ala khatami al-anbiya'i wal mursalin. allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.